markii la soo galbiyey ee qof walba uu ka baxay la macsalaameeyey oo loo marxabeeyey oo loo duceeyey oo la dhahay dee wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara ubad qeyr qaba Allah idinkala siiyo qofkii ugu dambeeyey uu guriga ka baxay labadoodii markay isku soo hareen ayaa waxaa dhacday in wiilkan intuu meel fariistay uusan gabadhii la hadlaynin gabadhii way yaabtay muxuu kula hadli la yahay dee ninka ragga asaga hadalka bilaabo wax hadal ka soo yeeray male markii ay dhinaciisa fiirisay ninkan cijiyo iska guranaa wuu isma dadaalinaa dee gabar ma la hadli kartaa nin habeenkii ay wada aqal galeen ka aamusay laakiin markii dambe waxaa afkiisa ka soo baxay hal kelmad oo gabadhan wadnaheeda runtii aad u garaacay oo ayada inay istaaga ka dhacdo runtii ay ku sigatay maxay tahay kelmadaas uu wiilkan asagoo gabadhan saacado badan ka aamusnaa uu ku dhahay aan isla aragno qisadan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو جنالكيغا ايان قوبدون ومركلي اسكو سو نقود وناكسن iyo muuqaal kale cusub fadlan hadaa igu cusubtaa walaal subscribe isaar ka mid noqo asxaabteyda hadaa hore ila joogtana muuqaalkan like isaar bariyahana like to way yartahay min fadlan muuqaalka like noo saara muuqaalka kobciya si dad badan ay u daawadaan asxaabta cusub ee kusoo biirta channelkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub qisada maanta idin wado waxay ku dhacday gabar lagu magacaabo Susan inta badan waxaan arkaa marka qisooyinka idin soo bandhigayo inaa jeceshiin qisooyinka sirta dilka dad yar ah waxay aad uga helaan qisooyinka maxaa la dhahaa diiniga because ani waxa isku dayaa inaan qisooyin nooc idin soo jeediyo almuhim qisadan waa qiso aan isleeyahay aad ayay cajiib u tahay waxayna يعني كهالليسا قفكم مركو كهجرداميو قفك بني آدك قفنا وو صبرا قفنا قفك لباتد وجيستي وكذبتجا وكأرصدا dadku isku mid maahan marka qisadan daawatid wixii aragtidaada ah qaybta commentiga igula soo wadaag qisadan waxay ku dhacday gabar lagu magacaabo Susan waa gabar reer Carbeed ah Susan waxay ahayd gabar jirta 25 sano waxay ka daahday guurkii oo dhaqsimaysan guursanin hooyadeed waxay bilowday markii ay gabadheedu aragtay in nin ka soo doonanayo haba yaraatee uusan jirin 25 sano dabcan waa caadi in gabadhu ay joogto laakiin sida familkeedu ay u arkayeen in gabadhooda uusan ninba soo doonan oo nin inuu quduubto xataa aysan dhicin aroos iska dhaafe marka waxaa dhacday in moolasha meelaha dadku isku imaadaan xafladaha inta gabadheedu u labisto ay wadi jirta bal nin soo isha dhac ugu soo siiyo oo yaani ay guur u hesho waxay saas ahaataba si kasto ay u dadaaleen de ilaahay wuxuu ku qorin ma heli kartid wax walba waa qadar ilaahay waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah inuu aabaheed u soo jeediyay inuu nin asagu uu keenay uu guuriyo maadaama gabadhan aysan ayadu nin keensan nin dooq ahaan u soo raadsadan uusan jirin soo ayadu waxay ku tiri aabo aniga hadii aan guurka ka daahay macnaheeda ma ahan in adiga aad ii soo dooqday inaa igu dartid waxaan rabaa qof aniga aan arkooday aan calmooday mesela inaan guursado laakiin wuxuu ku yiri gabadhaydii anaa ku dooqay anuu dooqaygi yahay ninkan guurso markii dambe way ka ogolaatay ninkii waxay isbarteen adigu gabadhii muddo bil iyo xoogaa ah barasho kadib isla markiiba way isfahmeen waxay sameeyeen farantigelis sida caadadaaba carabtu doonasho macnaha quduub doonasho farantigii u galiyay 3 bilood ay hadana isii barteen oo ay qaadatay intii uu farantigeliskooda ah ka bacdi hadana waxa la gaaray xilligii ay aqal gali lahaayeen macnaha quduubka way isku fahmayaan intay isku doonanayeen hadii ay isfahmi waayaan waa kala boodayaan oo macnaha qof walba fantashiru fil ard waay hadii isfahmaan way isguursanayaan ayagu markaa way isfahmeen ka bacdi way aqal galeen aroos kadib waxa dhacday markii macnaha xafladii arooskii iyo wixii dhan adigu qof walba gurigiisii aaday oo arooskan la galbiyay ayaa waxa dhacday waa sheekadu meeshii cajiib ka leedahay in ninkii iyo gabadhii markii ay aqal galeen oo gurigoodii ay galeen
waxaba yaraatee ninkii hadal ah uu ka soo bixi waayey. suusaan aaday ula yaabtay ninkii, waxay istiri waay uu kuula hadli la'yahay. dee ninka raggaa hadalka bilaabo. adiga hadda gabar ahaan haddii inta maalinka arooskaaga ninkii dhan ee ku aqal geystay gurigiisa ku geystay hadduu masalan kula hadli waayo hadal ma ku bilaabi laheyd, indha adeeg macnaha ma samayn laheyd? siday kula taha aragtidaada? gabadhan markaa ninkan wax hadala way ka weysay, way fiirisaa, muu kula hadlo, way xishootaa, qalbigay waxay iska dhahdaa talo adi muu kaa helin, suu kaaga heli waayo, waa wada sheekaysateen, yacni aroos qurux badan uu kuu dhigay, dhaqaaluu kaa bixiyey, gurigay fiiris, gurigan quruxda badan oo yacni kuu dhigay, say wax u jiraan. marka dambe waxay istiri malaha shaydaana idinku dhex jiree, shaydaanka idinku dhex jira balka cuudubilayso. way cuudubilaysatay, haddana ninkii fiirisaa saa cijiyuu iska jajaranaabo. waxay tiri maxaa talow ka khaldan, saan ma ku fiyow yahay, muxuu kuula hadli la'yahay? markii dambe waxay bilowday inay ayaduna istiraahdo adiga ma ahan qofka mudan inay ninka la hadasho, iska aamus. markaas waxay bilowday gabadhi inay ilmeyso, maadaama ay aragtay ninkii inuusan la hadlaynin oo wax kelmada afkiisa ay iska soo bixaynin. ilmadiisa ay uga socotay uu mar qura afkiisa waxaa ka soo baxay kelmad qalbigeeda iyo ayada dhan gilgilay ee aad uga naxday. wuu soo istaagay, dhinaceedu soo maray, markaasuu dhahay maxaa la ilmeynaysaa, maxaa kugu dhacay? markaasay tiri maya waxaba yaraatee igu dhacay ma lahan. markaasuu yidhi jawigu wuu kaa qaldan yahay, indhahaaga ilinaa ka socoto. markaasi waxay ku tiri maya caadi waaye, adigu marmarsiyay samaysatay. markii dambe ayuu wuxuu ku yidhi waad furantah. qiyaas ma habeenkii ugu koowaad ee mustaqbalkaaga ama noloshaada nin hadduu saas kuu gala ka war ilaahan ka magan galne. gabadhii aaday u argagaxday, aaday u murugootay, wax su-aala maysan weydiinin, wax hadalana kumaysan celin. dharkeediiyay soo aruursatay, boorsaday kusoo guratay, siday gabar walba dee markii la furo guriga hooyadeeda kusoo laaban lahayd guriga hooyadeeda kusoo laabatay. markii ay gurigii saas u gashaba aabaheed isla markiiba wuxuu bilaabay inuu yidhaah allah ninka qaa'inkaa wuu iga aargoostay, allah saandhan inuu ii galaayo ma u malayneyn, allah wuu iga raaye. hooyadiina af labadiis ay dhawaaqday, waa hooye way oyso, way barooratay, maxaa kugu dhacay, maxay tahay xilligaa ii socotid, aaway mustaqbalkaagii iyo noloshaadii maxaa dhacay, ma adiga wax kaa qaldan yihiin, ma isaga wax ka qaldan yihiin? su-aalay bilowday. adigu gabadhi isla markiiba waxay fahantay in aabaheed yacni uu sabab u ahaa in gabadhiisa la furo. gurigii markii adigu hooyadii iyo aabihiiba oo qof walba dhankiisa ka yaaban yahay ayaa waxay bilowday inay aabaheed weydiiso. markii dambena runtuu u sheegay gabadhan aabaheed iyo wiilka gabadha guursaday aabihiis waxaa ka dhexaysa shaqo oo ay ku ahaayeen yacni laba qof oo shaqa ka dhexaysay ahaayeen. marka shaqadii isku khilaafeen, raaligelin darteed uu ninkan gabadhiisa u beeciyey, wuxuu u siiyey wiilkan oo aan gabadha rabin. intaas dhan waxay ka ahayd aargoorsi, yacni waa laga aargoosanaya gabadhan aabaheed darteeda intaas dhan loo xumeeyey. gabadhi waxay bilowday inay baroorato oyso, laakiin markii dambe ayadoo naagnimo iska raadinaysay aabaheed waxay ku tiri aabbo anigu ma khasaarin, wax dhibaataana iguma dhicin, mustaqbalkayga aad saan dhan u khasaarisayna hamoodin inaan maanta khasaaro ku suganahay. kadibna ayadoo ilmeynaysa qolkeedii iska gashay, way barooratay. markii dambe waxay istaagtay muraayad qolkeeda ku taalay, aad iyadoo macnaha u ilmeynaysa way isfiirisay. waxay tiri quruxdaanaa leedahay, qof la nici kara ma tihid, calafku hadduu kaasoo daaho ninkaa ku xumeeyey macnaheeda ma ahan, yacni way isdhiiro gelisay. markii dambe marka waxaa dhacday inay qudo gabadhaani ku fikarto oo ah inay ninkan habeenkii koowaad ee nolosheeda mustaqbalkeeda burburiyey saas u galay inay ka aargoorsato. sababtoo ah xaafadii oo dhan ma bixi karto, qof walba wuxuu leeyahay wiilkii gabadhu meel isku dhow way deganaayeen, heblaayo waa lasoo furay, hebelaa soo furay, dadkii dad waa iska taqaanaa. gabadhii oo dhan waxay noqotay qof guriga aan kasoo bixin, laakiin waxay go-aansatay inay ninka ka aargoosato. siday marka uga aargoosanaysaa? waxay samaysay maalin maalmaha ka mid ay taleefonkiisii wacday. markay wacday isagiyaa ka qabtay, yaa waaye qofta ila hadlayso, heblaayo waaye. markaasay waxay ku tiri hebel ani sidii aan weli kuu jeclahay, waxaan ahay naf ku jecel, haddaa habeenkaas i furtay macnaheeda kama dhigna aniga waa kaa helay, aadaan kuu jeclahay. adigu gabadhu ninkii
hadalla naxariisa oo jilicsan ku tiri ninkan wuu aaminay kabacdi wuxuu dhahay xagee isku arki karnaa meelay u balamisay waxay tiri meeshaasa isku arkaynaa meel qaxwaahay ku kulmeen way wada sheekaysteen markay wada sheekaysteen gabadhi ninkii waxay bilowday inay soo jiidato yacni maalin ka dambaysa erey jecel tiraahdo qalbigiisa degto mar alaale iyo markay aragtay inay qalbigiisa degtay ayaa waxaa dhacday maalmaha ka mid inay tiri sawiradaadaan rabaa iyo fiidiyoyaal inaan isla duubno isla sameyno oo jacayl ah wuu ka ogolaaday fiidiyoyaal iyo sawiro oo iskula jiraan ayay ka samaysatay gurigeeday keensatay waxaa dhacday marka ninkan maalmaha ka mid gabadha inuu ku yiri waan ku jeclaaday waan kaa helay waan kaa qaldamay allay leeyahay shabaqii ay rabto ugu soo dhacay markaasi waxay ku tiri maxaa igu falaysaa soo shalay imaadan soo furin hadda guuriga ku degdegin iska dhaaf waa isla sheekaysanaynaa bes aniga macnahayga intaas waaye markaasuu yiri ma inaan ku guursadaan rabaa maxaa guur ugu degdegayhay tiri wuxuu yiri aabbahay wuxuu rabaa in uu gabadh igu daro in adeertay ah markaani adaan ku jecelahay ma rabi gabadhaas markaasi waxay bilowday inay taleefankii ku jarto aysan ka qabanin uu waayo ilaa markii dambena waxaa dhacday maalmaha ka mid ah wacdo waxay tiri iscafino arooskaagana waa ka qaybgalaa gabadhii ma guursatay markaasuu yiri biri dambaan gabadhii guursanaa gabadhan waxay raadisay qudo ay arooskaas uga qaybgeli karto gurigaas ay ku aqalgalayaanna ay ku heli karto waxay raadisay maadaama xaafad ahaan ay isla deganaayeen waxay raadisay dadka ugu dhow ee markaas arooska ka shaqeynayay waxay iska dhigtay dad yacni dadka ugu dhow oo wiilkan u shaqeynaya iyo gabadhan ah waxay iska dhigtay weliba gabadha cid ka socoto quday degatay dan marka waxaa dhacday in maalinkii arooska ay isku beegtay markii qolka loo galbinayay inay iska dhigtay dadkii ugu dhowaa sawiradii iyo waxyaabihii markaas ay ka samaysay ayay meel u dhigtay sidoo kalena waxay raadsatay telefoonkii gabadha mar alaala iyo markii ay aqal galeen ayay wacday markaasi waxay ku tiri meeshaas iyo meeshaas waxaan kuu geliyay hadiyad aada u qurux badan marka ka fiirso wiilkan waxaa dhacday in uu dadkii sagootiyey kabacdi gabadhii markii ay gabadhii wacday oo hadiyadan meel kuu geliyay tiri hadiyadii lasoo bax maagtayba waaba ninka dhan ee aroosaaye iyo gabadhan oo jacayl iyo fiidiyoyaal iyo sawiro iyo maxabo iyo kalgacal ay ka dhexayso aaday u qaraacantay abeenadii uu dadkii sagootinaya kasoo noqdayba kalarkay ku dhegtay ifuray tiri aaduu u naxay maxaa kugu dhacay uu dhahay ina adeertay sooma tihid maxay tahay ifurtaa sheegaysid lagama yaabay tiri inaan nolol kula wadaago bartiyuu ku dalaaqay ee gabadhii isaga furtay boorsadeedii aruusatay wayna ka tagtay gabadhan way wacda ninkii wax walba markay u cadaadeen inay u hagaagayaan ay ku kalsooneedeed ay kalsooni ku qabtay macnaha fiidiyoyaashii meesha ay dhigtay waan u jeedaa sheekada waa macaansanaysaa laygta horta saar dhag isaga sii laygta oo reeb marka waxaa dhacday wiilkii markay wacday waxay ku tiri hebelow waan kuu hambalyeynayaa waxaan kuugu hambalyeynayaa arooskaaga quruxda badan aa gashay markaasuu yiri yaa waa qofta ila hadlaysa markaasay waxay ku tiri waxaan kaloo kaaga hambalyeynayaa inuu mustaqbalkaagii kaa burburay habeenna kuma rabin maalinna kuma rabin kabacdi wiilkii wuxuu bilaabay gabadhii inuu ku naanaabo jeclaado 24 saac raadiyo laakiin markii dambe waxay samaysatay mustaqbal sidii ayayna guri ku dhisatay wiilkaana ee u argoorsatay mustaqbalkiisina ay sidaas ugu dudumisay waxayna ku ogaatay in habeenkaas uu mustaqbalkii ka dudumay gabadhii taleefon ku soo celisay sidii yacni u ogaatay oo u sheegtay inay ninkan ka soo tagtay iyadana way ku jeesjeestay aragtidaada gabadhan ninkan inay saas ayaduna habeenkii aqalgalkiisa uga aarsato maadaama asagu uu habeenkii ula aqalgalay ilin iyo murug iyo raad saameynla uu ku reebay ma ku saxsan tahay mise way ku qaldan tahay wixii aragtidaada qaybta commentiga igula soo wadaag sidoo kalena muuqaalka asxaabtaada la wadaag oo min fadlan share garay sidoo kalena like star waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.